بسم الله الرحمن الرحيم وفتحية عبسية خيري برواقع نين رجينيا ومركا لي شيكو وينجي كوبلاني إن شيكوين كلا جوين ودada bariye ku heshaday ee warka iyo hayga gooyn waraaqaha maanta sheekadan waxay ku saabsan tahay arrimaha qalbiga matters of the heart bini'aadamku siday u kala duwan yihiin ayay ku saabsan tahay dadka qaar ay sawir qalbiga ugu sitaan qof si gooniyo waag si gooniyo u dhaqdaa wax gooniya maybe qabtaa hadduu doono sidaa wuxuu bartay reer gooniya ka dhashay I'm sure many of us waynu garanaynaa waynu fahmi karaynaa meeshaan ku socdo anyway gabadh baa jirtay markaa aad iyo aad diiday qofkaa qalbigeeda ku jira her soulmate qofkaa ay qalbiga kala ciyaarto ay kala sheekaysto ay kala faqdo mooyaane qof kale inay maaragtay waqti siiso asxaabteedii oo dhan baa wada guursatay reerkii ehelkeedii oo dhan reerkii dadkii oo dhan baa nafta u keenaynaa meesha ka dhaqaaqnaa waqtigii tegnaa iminka waxba kuguma hadhin cimri waad maraysa gabdho badan way fahmayaan meeshaan u socdo aan ka hadlayo anyway gabadhii wadnaha la cadeeyay abadan iyadna way diiday waxay tiri qofka aan sawirka aan haysto qof at least boqolkiiba 80 ku soo dhow mooyaane aabahay buu iga yahay nin kale aad bay wax baratay nolol yar oo qurux badan bay samaysatay her own happiness bay samaysatay farxad ayadu de qofka bini'aadamka isaga farxadiisa isu haya qof kuma hayo farxadda adaa samaysan kara adaana de iska muraar dilaac iska ahaan kara it's all up to you and anyway marka gabadhii waxay tiri mar badde qof bay u soo yaro dhawaataa yaro barataa markaasay tiraada alla ilaahay kana u soo sansaaneeg markaasay haddana markay cabaar yara barato tiraada may isagii maaha waa mid iska soo dhigay anyway adigu muddo kadib farahayba ka qaadayba waxa dhacday markaa waxay tiri de waxaan dadka wax tari karana waan tarayaa and there's so many things farxad aan ku heli karo waxbay aad u akhridaa adduunka marba meel bay tagtaa nolol qurux badan bay iyadu samaysatay dadka wixii ay wax tari karayso si fiican bay wax u tartaa iyadoo iskaba samirtay oo iska quusatay oo project weyn ka shaqaynaysa ayuunbaa fursad waxa u soo baxday ay dalxiis meel ku tegi karto tuulo ah oo laakiin xeebi ku taalo meel very quiet ah waana intay u baahnayd oo aad bay projectka uga shaqaysay oo ku daashay fursaddii bay qaadatay iyada qalbigeeda waxaa ku jirtay sidii eat pray and sleep kind of thing baa madaxeeda ku jiray meelay ku nasatay doonaysay dabadeetana subaxaa ka midaba istiri bal imika nasatay aade bal iska soo yaro lugee raincoatkeedii yaraa bay soo qaadatay in yaroo dhexana baa jirtay bannaankii bay eegtay roob baa da'ay cadceeddii baa halkaa ka soo muuqataa reflectionkeedii baa badda ku dhacay jeegaantii baa lugna kula bannaanka ku taagan tahay lugna badda biyaha ku dhex jirtaa it's a beautiful morning very very quiet shimbiro yaryarun joog mooyaane wax sunquriya sanqara male meeshu waa iska cidla way dhaqaaqdo badii bay gashay kabaheedii bay markaa la baxdo bannaanka meeshii dushii sare kaga tagtay hoos bay u daadegtay niistii markay cabaar ku socotay waxay aragtay raadkii bay cagaheedii dul saartay waxay aragtay inay yihiin raad nin oo kale way iska lugaysay cabaar markay iska sii socotay ayay waxay aragtay muuqaal soo muuqda marba qofkii markuu soo yaro dhawaaday sansaan nin buu la soo ekaaday inan buu noqday markay aragtay uu soo dhawaaday way yara naxday qofay taqaanuu la yara ekaaday markaa naxdintii bay turunturootay oo suulkay ku dhufatay dhagax soo taagnaa dhiig baa ka soo booday ouch intay tiri bay isqabatay meeshiioo dhulka yara fadhiisto markiiba wuu arkay oo ku soo cararay wuxuu ku yidhi okay ma tahay ma ku caawin karaayo dhakhtar baan ahay buu ku yidhi
first aid kit baan sitaa jeebka ugu jirtay soo baddu tagayo kombadiisi biyuhu biyo ku soo qaaday oo kaga maydhayo suulkii buu qalajiyeeyo wuxuu ugu xidhay bandage intii uu u dheeyay meesha labadoodaba way isdaawanayeen because labadu waxay isku noqdeen laba qof oo isna garanaya laakiin haddana way ogyihiin inaanay weligood sarag labaduba midba midka kale sawirkiisa ama dee sansaankiisu qalbiga ku sitay isna mid iyadoo kalaa buu ahaa oo sideeda raadinaya qofkaa specialka ah waxay noqotay sheekadii indhahay naxay aragtidaadii oo ildoogsaday eegmadaadii maalintii laga bilaabo 10 cisho dib u sii joogeen resortkii yaraa may kala hadhin halkaa kalgacal baa ka bilaabmay dee in badan labaduba waay arag bay ahaayeen way garteen inay labadii qof ee weligood israadinayay ay ahaayeen diyaar bayna u ahaayeen dee wax walba hadday relationship noqoto dee guur weliba noqoto maalintay sii kala tegayeen labadii ardood bay kala raacayeen dee informationkii bay isdhahdeen isweydaarsada markay la soo baxeen midba midka kale uu nowdu dhiibo uu yiri qorkaaga annakaygan qoraya markay isweydaarsadeen labadiiba shog bay noqdeen waayo not only magaalo weyn bay ka wada yimaadeen New York bay ka wada yimaadeen taa way ogaayeen waxa cajiib ku noqotay inay isku magaalo degan yihiin kaliya maaha inay isku xaafad degan yihiin oo isku wada degan yihiin oo isku building daar degan yihiin oo ay laba apartment oo exactly kala sareeya ay degan yihiin haddana ilaahay amarkii aanay weli wada iskaga soo horbixin oo elevators la soo raacin oo xataa taxi maaragtay banaanka aanay marna kaga wada degin laakiin ay thousands of miles socdeen ilaahay socodsiiyey si ay isu soo helaan halkaa waxaa kaaga muuqanaysaa marmarka qaarkood wax agtaada ah ayaanad weliga agtaada yaalla baanad arkayn waayo ilaahay subxaana watacaala dee kuma talagelin inaad halkaa ka heshid waa sidaynu nidhaahno qabrigu ma socdo qofkaa socdoo kale inkastoonay ahayn in lagu matelo sheekadan oo kale wax waliba walajeeday leeyihiin waxa kaloo halkaa ka muuqata dee ilaahay subxaana watacaala qof walba qof buu sameeyey inta aynu noolnahay ee naftu inagu jirto mar walba qofkii iyo wixii lagugu talagalay waad helaysaa waxa uu loo baahan yahay inaad dee camalkeedii la timaadido hawlgalkeedii la timaadido hiigeedii la timaadido marna aanad gifab garayn dadku markaad qof special raadinaysid ama aanad dadka ku dhacdhaca ahayn ee qof walba iska raaca ee ka raacdiya tolomakana waxay ku arkayaan qofkaas uu qab weyn yahay bay kornay qab weynidu ma wada xumo laakiin qof dad baa jira aan qab weynayn aanay ka ahayn kibir laakiin ay ka tahay dee qofkaygii ilaan helo amnaakana sarac iskama raacayo ama isuma qaadayo qof aan ogahay inaanu qofkaygii ahayn anoo isle qofkaagii buu noqon doonaa wuu isbedeli doonaa halkaa waxaa ka dhacday inankii inantii iyadna waxaa ku soo dhacday heestii ahayd haybowambawaan ku haybinaye ku haybshe maayi hanwaynta isagana waxaa ku soo dhacay heestii ahayd nabadee waxaa qaba ninkadigoo nool nimco kula wadaage nebceeye bare dogii nugaaliyo naqa jeceeliyaye naruuroy hadhka aku naste yaa nuurar cayn yaa nuurar cayn siduu nabarku igu yahay whatever you do don't you ever give up
ilaa iyo sheekadeena dambena keep searching nabadee